waxyaabaha keeneen qofku hami sare yeesho waxa ka mid ah akhriska la akhriyo siiratu saalixiin dadkii hore salafka iyo saalixiinta taariikhdooda iyo siirkooda markaad akhrido tara alcajab alcujaab wax aad u yaab badan baad arki doontaa haddaad ay kitaab min kutub siyar haddaad soo qaado akhrido oo aad dadkan taariikhdooda eegto waxay ahaayeen dad hami sare leh go'aan leh مثلا إنه واحد لقى كتابك بخاري أنت تسوق عضينا تسقى خصوصا ترى وصحيح البخاري وكتابك واصح لما بدأنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يسوي دي سي بخاري سدو كتابك نقري أنتوا دلوا جاي دولة يرى الراشي هذا كقايب وكيمي أنتوا هلقا كسؤال جاي أيوة أنت صوتشر بغداد قلي أنت صوتشر دمشق قلي أنت صوتشر مصر تجي أنت صوتشر حجاز يمي مدينة يمي مكة يمي أنت هو جايني waxaanu leeyahay xadiid kitaabka kuma qorin ilaa iyo intaan weysaystaan salaad tukaday marka waranka hal xadiid oo kasta uu qorayo intuu salaad tukado qorayo dabeetana waxa kitaabka ba xadiid ku qoran bale al-imam ar-rawayani ninka al-farabri farabri waa raawigiisa waa bukhari ninka xadiidka ka warinayay wuxuu leeyahay habeen baan u seexday toban iyo 6 jeer buu faynuuska shitay buu leeyahay riwaayadka qaarkoodna waxay leeyahay 20 jeer buu soo kacay ka waran qof habeenkii 20 jeer u kacaya inuu mas'ala baaro habeenkii mas'ala jeer baynu toosanaa teeninka mar uu indha kala qaaday salaada tukada kaasum bayna ugu ragnimo badan inaga inta kale waa habeenada way seexata laakiin bukhari inuu waxaan ururiyo habeenkii buu 20 jeer kacay labaatan jeer nin faynuus u shidanaya inuu mas'ala cilmiye baadha ama wax qora ama wax raadceeyo markaas ay dhacday inuu soo saaro kitaabka ugu asaxnimo badan ilaahi kitaabkiisa dabadi dunida kitaab dul saaran baa leeyahay waxa ugu asaxnimo badan sahih al-bukhari laakiin wuxuu ku yimid nin hamigaale hamigaasi muxuu ka bilaabma kalima isagoo culimadiisii mid ka mid ah dhageysanaya أو درس آخرون يشيخ يري في عنان الله هيده هدون نسكت ضيو نبي قوي حديث كأصحين وأروريه وين دا وشيخ سكا مغلوب قنطضة وحق قنطضة يسقوا أرضية وشيخ وحكى دقي سنية إنه يسقوا قماء نغضه نك حديث النبي محمد أرورينية عليه الصلاة والسلام إنه يسقوا نغضه هنكاسو قبي يسقوا أرضية ودقي سنية شيخيس هانكو قبينا فعل أبو كموتشين وهبيك إلا 20 jeer kaco فعل أبو كموتشين إن أنا كتابك حديث كقرن إلا ينتو ويسيستين وتكذب مويانه سقو صلاة تكذب مويانه إن أنا حديث كتابك كقرن إذن قراءة سير السلف هذا أخرده بخاري كتاب كيسة الخطيب البغدادي إمامك محدثين توقوها وينه وحلا إلى هذا يسقو jooga Baghdad ayaa magaalada waxa soo galay safar oo la socdo Sheekh Ahmed al-Darir nin la yiraahdo oo Imam al-Kushmayhani ka qaatay xadiidka Bukhari kitaabka Bukhari raga laga barta ayaa magaalada soo galay oo safar oo socota makay xagga ku soo socda markaasuu u yimi wuxuu leeyahay kitaabka Bukhari rabnaa inaan ka saxano aanu kugu dol akhrino fadal buu akhriya kitaabkiisa wala kala baxay maghrib bay bilaabeen dabeetana siday u wadaan salaada subax bay ku tukadeen khatiib al-Baghdadi iyo xirtiisa la socotay ba akhriyaysa kitaabka nin walbana kitaabkiisu saxanaya waxaana laga saxanaya la rabaa kitaabkaasi 7,000 xadiis ku qoran tahay in la dhameeyo ninkan socotada ah ee labada habeen u hoyanaya magaalada maghrib baa la bilaabay sidii loo wadaa waagu bariyay habeenkii dambe loo yimi maghrib baa la bilaabay sidii loo waday baa waagu bariyay maalintii dambe sheekhi qoladii la socotay in yar guureen waxa la yidhi uu baxaya sheekhu yaan ka gaarsiino barqadii dambe loo yimi sidii loo wadaa cadceed ku dhacday cadceed leeyba hadana la bilaabay sidii loo waday baa waaga dambe ku bariyay 7,000 xadiis baa lagu dul akhriyay waa 3 habeen iyo maalin wax Bukhari 3 habeen iyo maalin gurigiisa iskaga akhrisnay meeleedii sugan meel laba qaban حديث البخاري انتو سوق هذا كتاب كيسة سكت على عدو يصير دمه بمجرد ننكاسي
kitaabka bukhaari haya inay ka saxdaan ee sii socdee safarka ah ee habeen ama 2 habeen 3 habeen u hooyanaya baqdaad in saddexdaa laga dhammaystiro kitaabka bukhaari idan siyarka haddaad akhrido السلف الصالح سير كودي هداد أخرده أخريا كتاب كاسي علو الهمة لسيد العفاني مركو والرميو دك صالحين تتقي في الجهاد في العبادة في الصوم في كل شيء وكو الرمية باب كذا أخرده برقو كو الرمية وحد صورة نسور كون مياني تلو بني آدم هين ما يبني آدم بيها يعني هم بيلا هايين وحاني الربين هنكو ديني كرنا بيان هم بيلا هايين همة عالية بيوتين وحكم إذا وحيابا قفك همدي سكرية إن ضدك خير كلا همدا صار لا صاحبته إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغالق للشر كحديث شيء ضدك ضد كم ده فريا الخير كواه الشر كان حريالوه kuwa haddaad ku xidhato ama la dhaqantid ama wax la wadaagtid adna hamigaagu wuu koraynaya haddaad laakiin la noolaatid oo la sheekaysatid qolada fadhi ku dirirka iyo kubadda cagta Manchester iyo Liverpool tii badisaya adna noocaas soo baxaysaa yani waa hankaagu waa cidaad ku xidhanto ayaad la han noqonaysaa dadkan hankan leh ee wax baranaya ee wax baadhaya ee hore u socda haddaad ku xidhantana adna hore aad u guuraysaa haddaad caatiliinta iyo dadkan iska fadhiya ku darsantana adna kuwa fadhiyaad ku biiraysa waxaa ka mid ah waxyaabaha hanka kordhiya inuu qofku aakhira raadcays yahay haddaad janno doonayso dee jannada waxaa layidhi ninka u boos yar baa carduha asamaawaat waalardu baa layidhi maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar cirkan iyo dhulkan bay ka weynti waxaan ilaa arag oo dhagi maqal oo qalbi bini aadam ku soo dhicin nicmada taalla weeyaan nicmada intaa leeg waxa laga yaabaa dadka fadhiya qaarkood inay bada u soo jeexeen in hoolan u la yimaado soo intaa maaha intaasoo badood iyo intaasoo saxaaro iyo intaasoo hawlin loo maray in halkan la soo gaadho intaad u baahan tahay markaa inaad imisa badood u jeexdo haddaad rabto jannadii rabbi inaad hesho meel lagu tilmaamay cirka iyo dhulka iyo adduunkan aynu joogno dhan inay ka weyntay qof kasta boosku helayo la sheegay waxa dhex yaala inuu yahay maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaan il bini aadam weligeed arag nicmo kastoo aad aragto way ka gedisantahay waxaan dheg bini aadam weligeed maqal wax kastoo lagaaga sheekeeyay way ka gedisantahay bal haddaad cidla fadhiisato khayaal kastoo qalbigaaga ku soo dhaca waa ka gedisantahay nicmada intaa leeg intaad u baahan tahay inaad markaa himmo sare yeelato oo aad u dirirtid oo u dagaalantid saa awgeed baa ilaahay ku tilmaamaya ninkii aakhiro doonaya oo wasacaa laha sacyaha oo u socda u shaqeeya shaqada ay u baahan tahay waa qof hammo sare leh himma sare hunguri sare qof leh waxaa laga yaabaa dadku in la yidhaha meel heblaaye ka qaraxday shaqo yar baa ka bilaabanto $2,000 shaqadaa yare $2,000 dad oo dhammi inuu xidhxidho siduu soo heli lahaa iyadoo jannadii rabbina salaada caajisa loogu tukado adoo janno ku raadacaynaya la arko inaad adoo caajisaysan ama liidato tukatid qofka hamadiisu aakhiro noqotana dee nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam man kaanat hammuhu alaakhira qofka hamagiisu yahay aakhiro ilaahay jamaca allahu lahu shamla ilaahay baa arrimaha isugu ururiya ninka hamigiisu adduun noqdana waa lagu kala firdhiyaa baa layidhi waa laga kala yaaciyaa adduunuun laba kuu gaadhi maysa uun soomaalida mahmaaheeda waxaa ka mid ah adduun waa sagaaloo ma tobnooba bay idhahdaan isagoo kaa dhiman uma dhimanaysaa adigoo aan weli halkaad lahayd buuxi aanay buuxsamin ayaad adduun baxaysaa waxyaabaha hunguriga iyo hanka qofka muslimkaa liidiya markaa waxaa ka mid ah ee uu nebigu inoo sheegay alwahnu baa ka mid ah wahanka nebigu wuxuu ku sheegay waa xubu dunya wa karaahiyatu lmowt waa adduunya jacayl
iyo geeri nacayb. hamiga qofka muuminka waxa koriya waxa ka mid ah inuu geerida xasuusto in badan. oo dhikri lmowt nebigu wuxuuna yidhi in badan geerida xasuuso. dad geerida xasuusato adduunka dhadhankiisa kula yaraanaya.